السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga waa idin salaamay seetihiin caafimaadkiina waa farxiyo cero janalkan waa janalka farxiyo cero janal kusoo dhawaada video cusub videogana waa sheeko aan maqlay aan raba inaan idinkaga sheekeeyo sheekada waxay ku bilaabanaysaa gabaray ahayd shoobkeeda ayadoo xirayso oo xilliga oo shoobka ay xirayso waxaa u imaaday ninkii markuu u imaaday wuxuu weydiistay musqul ayadana waxay ugu cudur daaratay maadaama ay shoobka ay xirayso waxay dhahday musqul makusii kari shoobka waa xirooyaa mana sii furi kariya dhahday bas ninkii wuu baxay wuu ka tagay intii uusan ka taginay waxay dhahday shoobabkaas kale furan ee aad Walmart ee dhahday wuu furan yahay saacadahan baxa aad bas ninkii wuu iska baxay ayadiina shoobkii xirtay markay shoobka xirtay markii ay shoobka xirtay waxay iska aaday inay iska baxdo baarkinkii aaday baarkinka markay saas u gashay waxay aragtay ninkii musqusha weydiisanayay iyo nin kale oo baabuur ku dhex jiraan ayada ma shakinin baabuurkeeda iska dhex gashay waa iska wadatay waa iska baxday wadada markay xoogaa ay socotay waxay aragtay baabuur daba socdo alashaan flow gareynayo oo jiirada ay gashaba ka dabagalayo bas gabadhan waxay sameysay dhowr jiire ka babaxday si baabuurkan uu ugu hiro dhowr jiiro markay ka babaxday way isdhahday baabuurkuu kaa hiray xaafadeeday tagtay xaafadeeda markay tagtay ee baarkinka ee gashay ee baabuurka ay rabto inay ka degato baabuura kasoo dabagalay baabuurka markuu kasoo dabagalay oo wuxuu baabuurkii ninkii labada nin saarnaayeen bas naagta markay aragtay labada nin baabuurkii inuu baabuurkii uu yahay waa argagaxda waa cabsatay daaqada isku xirtay ninkii yaa kasoo degta marka ninkii ayada marka hore uu imaaday oo musqusha weydiistay ayadii u tagay miraayada u garaacay wuxuu dhahay fur waxay dhahday ma furaayo wuxuu dhahay waxaan rabaa u dhahay inaan ku weydiiyo supermarketka oo Walmart xagee ku yaala bas ayada cabsiya haysay ma furaayay tiri ma furaayada ay dhahaysa ninka kale oo baabuurka ku dhex jira asigana soo degtay markuu soo degtay waxna uu wato ulmiya birmiya kolay wax uu gacanta ku wato uu soo degay markay aragtay naagtan waa naxday baabuurkii horey kala booday waa carartay bas waxay abaartay meel boolis kolay station markay meesha booliska ay tagtay ayagana way daba ordeen markay arkeen inay meel boolis u socoto way ka hareen markay arkeen meel boolisna u socdo way ka hareen ayada meesha booliskii tagtay xoogaa argagaxi markuu ka oo xoogaa nasata kadib ay booliska wareysteen ay arinta dhan ay uga sheekaysay kadib maalintii dambe shoobkeeda la imaaday shoobkeeda markii la imaaday oo kaamirooyinka la fiiriyay ninka wajigiisa oo musqusha weydiisanaya markii ugu horeysay ninkaasaa la ogaaday ninka oo wajigiisa la aqoonsaday haddii la arko la heli karo bas ninkii baada goob u galeen askarti ayadana koraa lagala socday kadibna maalmo kadib waxay sameysay guri kale raadsatay xaafadii dhan way kasoo guurtay maadaama xaafadaas ay deganeed aysan xaafad zaaid ammaankeeda u sugan aysan ahayn bas gabadhii waxayna u bartilmaameysanayeen kolay waxay arkeen waaye sababtoo kaligeeday ahayd family iyo ehelna maka ag dhaweyn iyo asxaab mar walba kaligeeday socotay marka xaafada cusbeed ay deganeed ee maalin ayadoo kasoo naqatay gurigeeda usoo noqoto gurigeeda u socoto waxay aragtay baabuurkii laftirkiisi iyo ninkiioo saaran oo gurigeeda meel aan ka dheereen yaalo bas naagta waa cabsatay waa orodayba gurigeeda gashay askartii wacday askartii imaada ninkii qabteen
ninkii markay qabteen ninkii waa la xiray waa la wareystay waxaa la dhaha maxaa ka rabtay adi kadib qirasho markii hore ma qiran laakiin markii dambe wuxuu dhahay waa afduuba rabnay afduubka ugu horeeyowna ahay oo ayada ka bilowdo wuxuuna dhahay waxaa u daba soconay inay kaligeed taa ogeyn wax walbana waa ogaay oo dhahay markii uu shoobka ugu tagaaya xatee marka ninka kale na asigaa la weydiiyey ninka kalena maalmo kadib waa lasoo qabta asigana soo fakad oo baxsanaayo gabadhiina saasay ku badbaaday sheekadayna meeshaasay ku dhamaatay fiidiyowga haddaa ka hesheen like saara siina sheer gareeya fadlan janalkan hadduu subscribe kuu ahayn subscribe noo saar mar walba waa ku mahadsantihiin sida aa noola socotiin kommentiyadiina quruxda badan fiidiyowgaan lamid intaa ku kulmi doono waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu